ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ننكي الله كبين أبورت ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين آيات بدنا جرى ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين آيات كل ما تنواجرتها نمن كان مركا sidaas shacabka Soomaaliyeed diintoodii xaniifka aheeday macsiinaya oo ka been abuuranaya oon Allah iyo rasuul aqaanin oo khawaarijta inay gacan siiyaan dad dawladda ku dhex jira oo sheeganaya ma taqaana siyaasiyiin oo markay dhiig afka ku hayaan shiban haddii dhiigga ummadda Soomaaliyeed ay ma taqaana ay ma taqaana afkooda gaw laga yiraahdana hin raagay ee maalin walba qaylinayo dhahay aniga inaan dhiig cuno shalayaan rabaa dhahay cid ka aqbali karta male ummadda Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa nima wuxuu yiri amel ma uu ku dhooso markaasoo وعيبو ذا لا يريو أديك عيبو ضرهم مركزه وحوري أنا قاعد بديد وإصدم بيضوناه أرنتها النهار الله أو حقيقة منه مركز الدولة الصومالية هي شعب كذا وحيابها ديك الحجران وإصدم بيها لكن أرجع حصده هي قولي ستده iyo kuwa calooshoor u shaqeystayaasha ayaa waxa la rabaa in meel horta looga soo jeedo shacabka Soomaaliyeed iyo dawladoodu ay ka adkaadaan si ay qarannimadoodii iyo karaamadoodii iyo sharaftoodii ay u soo naqato xilligii munaafiqiinta ilaahay markii uu ka warramaya wuxuu yiri wal murjifuuna fil madinati لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا كوا مجالده أو جلجلاية أو أرجع حسدا عنت سيناية أو متغنى إن خبه إن الشعب كصوماليات شرفتوا ذا كرامة ذا عيد كردان dawladda waxaan ugu baaqaynaa inay tilaab ka qaado tilaabta ku haboon ay ka qaado maxaa yeelay lama aqbali karo dhiigga shacabka Soomaaliyeed in la iibsado laga gato dal shisheeye iyo koox diimeedyo kuwa loo yaqaan ma taqaana sectarian people-ka oo ma taqaana raba mar walba inay مثال هم واحد له نن أو يجا كمية هاك هور إيمانه واحد له ورني وماشي عن محاكاة عادل هذا ما يشوف قصص عضيات دبعت كم غشة أم بوح خيرات كم غشة نوع يدون أنا هذا وحواي في القديمات كدبعت دي ثانكو شيء مركزه مركو وحو كله ما يشوف التكيم دواي موقته وحو كله وحما كدعيو أديك كله مركات أدوك الله هذا ما يشوف كي بدوايا ده هذا كسوة تجيو هذا ما جاي كفى إيدي سو وحكجر بالأوجا وخطرته سياد أوجا فكت مركز هو كله وحما كدعي وهم يشوف هذا كي لكن ما يابو إنه كله توس تتكاس خائمين تا ومضوطة لو أديك سدي أو على شر الشقيستياشة وحلها شعب كصومالي وتكدك تونادو waxyaabaha ay dawladda ka tabanayaan haday jiraan waabay anaga isha macalinka anagu waa joognaahay diyaar ay dawladda Soomaaliya u tahay runtii gacan weyn waa ka sii haynaa haday sheegtaan waxyaabo dhibaato ah laakiin in argagixisada loo adeegsado war shalay wiilashiina marka caalamka ay Soomaaliya waxbarasho u soo dirto arday ayaa Chinaha jirta arday ayaa Ruushka jirta arday ayaa wax ku barata caalamka wadamada Turkiga oo kale war ma argagixisa laga helaya
ilaaha idinku dheershay haddaad argagixiso taageerto god madow ma ogiya ma meel kale ku geeyi war dowladnimada miyaadan araga wiilkiina haddii la diro oo waxbarasho kusoo dhammaysto si lacag la-aana qiimaha ay leedahay miyaadan araga war miyaadan araga marka ka qaybgalka caalamka calankeena laga taago miyaadan araga argagixisadaas godka madow ku jirta oo caalamka mataqaanaa instrumentiga oo iyagaba markii la dilayo xilligii ay waktigoodu dhamaado maalin walba la garaacayo kuwaas mugdiga ku jira oon alla iyo rasuul aqaanin waa inaad ka digtoonaataan wax banaanbaxana inaadan lacagta laga keena qatar iyo argagixisada iskaashatay taladooda inaadna ku haligmina ood ka digtoonaataan ood ka waantowdaan saasaan idinkugu baaqaa aad iyo aadaadna u mahadsantihiin dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto gaar ahaan shacabka muqdisho ku nool runtii annagu dhib badanaan kasoo marna argagixisada mana aqbali karno idinkana waxaan idin leeyahay yay mar labaad idin hodin hore idin hooyadeen iyagoo maxaakiimaana hadhaha ayay biladan idin horseedeen aad iyo aadaad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. salaad waa Saleebaan Raadiyo Soomaali Cable TV. waxaad sheegtay in dad aad ku sheegtay qowlaysato oo siyaasiyiin ah inay banaanbaxyo abaabulayaan argagixisana waad sheegtay dowladana inay baritaarayaan ama lacag ku bixinayaan dowladahaas ma noo sheegi kartaa ee shakhsiyaadka banaanbaxa abaabulaya adiga waxaad ogtahay dad oo sanataro ah oo aan kasoo qayb gelin weligoor oo imaaraadka ku nool waa ogtihi maxay yihiin magacyadooda noo wadaagi kartaa waad garan kartaa hade adiga cumar cabdirashiid hadda haddaan kasoo qaadno sanatar waayo halkaan ma yimaado soo ma xusaysan waxaad ogtahay xisbiyada halkan fadhiya oo iyaguna qarashaadka halkaas laga soo dhiiba dowladda imaaraadku ay keentay oo aada u lixaada badan qaybinaya hadda ka horna mataqaanaa aada ogtahay in dhibaatooyin fara badan laga mutay oo arintaas ay dowladda soomaaliya ka hadasho iyo shacabka soomaaliyeed guud ahaanba arrimahaasi marka arrimihii waa soo laba lixaadsadeen iyagoo wiiqaaya jiritaanka ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimada waxaadna ogtahay dowladda soomaaliya sidii ay mowqif u qaadatay dhexdhexaadnimo dowladda imaaraadku waxay cadaadin ku saaraysay oy u adeegsanaysay dad aan wadaniyad lahayn oon damiir lahayn ay u adeegsanaysay inay kula dirirto gudaha soomaaliya oo shacabkii soomaaliyeed ay u adeegsato iyadoo la marin habaabinayo inay markaas mataqaanaa ay dhibaato ku abuurto si iyaga loo dhegansado oo madax banaanida iyo karaamada iyo sharafta ummadda soomaaliyeed ay meel uga dhacdo taasna ummadda soomaaliyeedna ma aqbalayso dowladda soomaaliyeedna ma aqbali karta maxaa yeelay dalkan waa dal madax banaan ummadda soomaaliyeed waa ummad qiyam leh himilo leh aragti qaran leh cadowgeeda iyo mataqaanaa iyo kan unaxaya kala garanaysa marka arrimahaas waa arrimaha la qasbayo waxaana naloo kaga faa'iideysanayaa civil warki iyo dhibaatadii badneed oo aan soo marnay iyo argagixisadan oo anaga ummadda soomaaliyeed mar hore lagu marin habaabiyey oo maxaakiim looga dhigay oo ummadan lagu dhameeyey waxaasoo dhan ayaa marka laga dhiganayaa wadadaas waaye marka wadadan anagu ifinayno oo aan la aqbali karin iyadoo argagixisadii weli dagaal lagula jirana in iyagi inta heshiis lala galo si midaysan mataqaanaa ay u wada howlgalaan ayay maanta mareen marka arrintaas oo ay arrintaan rabna annaga inaan shacabka uga digno oo ay ka waantoobaan oo nimaan kuu rari doonin nimaan kuu furi doonin yow kuu rarinaa la yidhi caloosha shaqaystayaashaas kala duwan oo qowlaysato iyo dhiig miirad nin walba oo mataqaanaa maadaama uuna wadaniyad iyo damiir lahayn qofku oo markaasi hawshaas oo ku gacan sii haya argagixisada Soomaaliya ka dagaalamaysa